madaxweynaha gobolka Tigreed ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in dagaal xoogan uu ka socdo xuduudda ay la wadaagaan gobolka Amxarada. Hadalkiisa ayaa ku soo beegmay xilli uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu sheegay in howlgallada militari ee gobolka Tigreed ay sii socon doonaan. Markaasi waxa aad u adag in warar madax bannaan laga helo gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka uu dagaalku ka socdo maadaama khadka telefoonada iyo waliba internetka ay ka go'an yihiin gobolkaasi. Haddaba goor dhaweyd ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Daahir oo ka tirsan BBC-da qaybta warqabadka igana waramay warkii ugu dambeeyay. Ahmed dagaalka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo gobolka Tigray ayaa socda maalinkii saddexaad maanta. Shalay waatii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu sheegay in militariga guulo ka gaareen howlgallada ciidan. Waxa uu yiri ciidamada ayaa la wareegeen goobo muhiim ah. sidoo kale wuxuu sheegay in howlgalladaasi sii socon doonaan maalmaha soo socda. Dhanka kale waxaa jira hanjabaado ka yimid hogaamiyaha dowlad goboleedka Tigray Debretsion Gebremichael. waxa uu sheegay inay haystaan hub ayna u isticmaali doonaan cidii isku dayda inay soo weerarto gobolka Tigray. waxa uu yiri haddii la dhibaateeyo dadka Tigray hubkaasi ayna siyaabo kale u isticmaali doonaan. marka dagaalkii weli wuu socdaa. Cabdiyow bal waxaad nooga warta sidoo kale waxaa jiray baaqyo caalami soo baxay qaabka beesha caalamka ay uga hadashay arintani iyo baaqyada ay soo jeedinayaan. beesha caalamka walaac ayay ka muujisay xaaladda ka taagan gobolka Tigray dagaalka u dhaxeeya dawladda dhexe ee Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. waxaa warbixino ka soo baxay qaramada midoobay iyo dalka US Mareykanka waxay ku baaqeen in si nabada lagu dhameeyo xaaladda ka taagan gobolka Tigray. sidoo kale gudaha dalka qolyaha mucaaradka ayaa ayagana sidoo kale ugu baaqay in dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Tigray ay ku dhameeyaan xaaladda ka taagan gobolka si nabad ah ayna dajiyaan. marka baaqyadaas ayaa ka soo baxay beesha caalamka iyo qolyaha mucaaradka ee dalka. ugu dambeyntii Cabdiyow bal waxaad nooga warantaa qaabka warbaahinta caalamka ay u tabiyeen dagaalka ka socda dalka Itoobiya. warbaahinta ayaa ah laba qayb. warbaahinta qaranka ee dalka Itoobiya waxay diiradda saareen war-saxaafadeed ka soo baxay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. sidoo kale waxay soo daanayeen wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socdo Tigray. sidoo kale telefishinka laga leeyahay gobolka Tigray Tigray TV ayaa warbixinadii ugu dambeeyay ka soo baxay waxay sheegeen in ciidamada militariga ee dawladda dhexe ee Itoobiya ay geysteen duqeymo ay ka geysteen magaalo madaxda gobolka ee Mekelle. marka waxay ku eedeynayaan dawladda dhexe inay duqeymahaasi ka geysatay Mekelle. sidoo kale Ahmedow warbaahinta caalamiga ee waaweyn sida telefishinada iyo wargeysyada ayaa ayagana aad diiradda u saaray dagaalkan ka socda Tigray ayaga oo sidoo kale walaac ka muujiyay in dalka uu ka bilowdo dagaal sokeeye. waa sida lagu daabacay wargeysyada waaweyn oo laga sheegay telefishinada qaar ee caalamiga ah. marka wargeysyada gudaha dalka Itoobiya iyo kuwa caalamkaba aad ay diiradda u saareen xaaladda ka taagan gobolka Tigray.